wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ahna kusimaha wasiirka Naasir Ciidin Maxamed oo TV-ga qaranka Somaliland kula hadlayay xarunta wasaaraddaasi ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah waxaana wasiirku laamaha amniga Somaliland gaar ahaan ciidamada ku sugan kantaroolada magaalooyinka Somaliland u soo jeediyay in maalmaha ciida aanay ogolaan dhalinyarada isaga kala gooshaysa gobolada dalka marka laga reebo kuwa ay la socdaan waalidiintooda ama kuwa ay weheliyaan waalidiintooda waxaana uu digay waalidiintaasi sidoo kale wasiirku waxa uu ka hadlay xuska munaasabada 18 May iyo maalmaha ciida takale kulli maalinta ciida waa maalin iska mashquul badan xagga dhalinyarada iyo dadweynaha marka halkan kulli waxaan u jeedinayaa laamaha amniga inay ka diyaar garoobaan kulli diyaar garowga uu jiraaba inay kantaroolada ciidamada yara baabuurta ka baxaya ee dadka mas'uuliyiintiis wadanin inaan gobollo gudbin maalinta maadaama oo aanay dib gaariga qofka mas'uulka la wado ama carruurta qofkii mas'uulka ah ama abooda ma wado waa okay laakiin ciidan wadin aanay gobollo gudbin gobol walba wuxuu ku yimayaa goobtiisa iyo gobolkiisa ay ku yimaayaan oo magaalada dhalinyarada ka baxay barbareeska qabta loo baahan maalinta ciida haddana waalidkooda la socon inagoo ka duuleena xagga ammaankooda kulli wada sheegna ku dhul gobol uma gudbiyo maalintaas oo joojinayna maalinta ciida oo joojina qof aan mas'uulkii waalidkiisa la socon ma yeelinayno oo baxo gobol kale gaar iska haysta maalin ciidii hore badintaas qof ku dhimatay imika baliyada wada buuxo baliyada dad ku dhimanaya oo maalin kasta ku dhintaan ciyaaladu marka kulli de qof dhibanay inta kale laakiin inta taxadir waqti maalooda dhibaato ka timaada iyo waxa ka dhacay wadooyinka shilal ka dhaca u badan gaadiidba keena marka taas horta lama habbiga leeyahay iyaga dadweynaha waxa la yahay waalidiintuna carruurtooda qof kastaba carruurtiisa ay ilaashado mas'uuliyadooda ha qaado intuu gaadhi u iibiyo faraha ka qaadin marka carruuraha sax loo ilaaliyo dhalinyaradu ha is ilaaliso inagu jecelahay dalxiisiin la nafisada jecelahay oo maalinta ciida farxada laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan dantooda ma ka hadlaynaa kulli hadii carruurta ciid noqoto disada ma noqotaba waxa jira kulli wax lagu toodoro barxadii lagu toon jiray lagu tukuriyaa oo lama joojin sanadkan sidii sanadkooda aynu joojinay weli ma haynaa wax ama lagu joojiyay marka xanuunka COVID-19 wuu jira maalmo loo dhimanaya ha yaraado laakiin uu yaraado laakiin maalmo loo dhimanaya marka culimada tukuraysa masaajidada iyo goobaha tukuraysa waxa la yahay culimada dadka ku wacyigeliyaan oo dadka ku wacyigeliyaan kala fogaashihii iyo afxirkiina soo qaataan masaajidada ha u sheegaan bishadana ilaahay waxa rajeenaya inuu khayr ugu gaarsiiyo barwaaqo ugu gaarsiiyo dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Naasir Ciidin Maxamed waxa uu fariin u diray badhaasabyada iyo maayarada dalka taas oo ku wajahan xuska munaasabada 18 May gobolada dalka dhammaan gobolada dalka iyo badhaasabyada dalka kulli waxa fuudin ugu soo haysa munaasabadii ay dhimeyda wuxuu la joojiyay maritaankii la mari jiray wadooyinka ciidamada iyo shacabku mari jiray la joojiyay laakiin lama joojin munaasabadii kale ay dhimeyna joojin haday tahay qurxintii iyo haday tahay calamadii rinjidii wixii munaasabad la qaban jiray dhan sidii loo qabanaya waxaan noqon doontaa inay noqoto maxay xaflada habeenkii la qabtay khudbada la qabto ay ma noqon doontaa oo maritaankii kale la joojiyay wadooyinka la mariyay marka waxaan leeyahay hadu diyaar garoobo layrkii iyo wixii laga shaqeyn jiray laga shaqeeyo kuwa ugu gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka intaas aan leeyahay iyo maayirada Cabdi Qaadir Cabdullaahi Nuur iyo Cabdi Casiis Mursal telefishinka qaranka Somaliland Hargeysa.